kulanka waxa uu ahaa mid su'aalo lagu weydiiyey wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle waxa uuna ahaa shir muddooyinkanba laga soo shaqeynayay si loo dhiraandhiriyo in Soomaaliya ay afkeeda ku sheegato in laga cafiyo qaanta sanadaha badan qaadatay ee dulsaarkeedu uu ka badan yahay cadadkii horey loogu lahaa Soomaaliya in deyntan laga cafiyo Soomaaliya ayaa laga yaabaa inay qaadato muddo aad u dheer waxaana ku gadaaman sharuudo laga rabo inay dowladda Soomaaliya ka soo baxdo Eric Lecomte oo ah madaxa hay'adda Jubilee USA Network waxa uu sharaxay in dal ku jiro qalalaase argagixiso deganaansho la'aanna ay ka jirto ay muhiim u tahay in laga cafiyo deyntan. The 27 creditors that own Somalia's debt that have the debt, there are 5 or 6 that are really the primary creditor. The United States is currently the leading creditor, and the United States also has a very strong working deymaha Soomaaliya kule waxaa ka mid ah 5 ilaa 6 dhinac oo ah kuwa ugu muhiimsan waxaana kaalinta hore ku jirta dowladda Mareykanka oo Soomaaliya xiriir wanaagsan la leh marka ay timaado la dagaalanka argagixisada 5 kale ee dhinac waxaa ka mid ah Itaaliya, Faransiiska, International Monetary Fund iyo World Bankiga waa in horey loogu socdaa deyn cafinta raadinteeda waayo 4.6 bilyan oo dollar wadan leh 10 milyan oo dad ah oo sabool ah in laga dhaafo deyntan uma ahan kaliya ahamiyad laakiinse waa wax qalbi wanaag leh bangiga horumarinta Afrika ayaa haweeneydii ka socotay Nina Nawabafuto waxa ay sheegtay in 10kii sano ee Soomaaliya uu ka soo shaqeynayay bangigaas horumarintiisa ay maanta Soomaaliya joogto waqti ka wanaagsan kii hore deymaha oo laga cafiyana ay dhabaha u xaari doonto ayay tiri horumar qaraweyn. To sustain the recovery efforts and put Somalia on a new development trajectory requires more financing that is currently available through donor grant support. Si halkeeda loogu sii hayo dadaalada dib u soo kabashada ah iyo horumar la gaarsiiyo Soomaaliya ayaa u baahan deeq ay hesho Soomaaliya taas oo haatanba diyaar ku ah hanaanka deeq bixinta in laga cafiyo deynta hadda lagu qiyaasayo 4.6 bilyan oo dollar Soomaaliya waxay aalad muhiim u tahay in irdaha ay u furto kheyraad horumarineed oo hor leh marka laga soo tago in ay dadaalayso dawladda wax badan kuma saacidi karto inay u abuurto fursado dhaqaale muwaadiniinteeda. wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle oo ku dheeraaday in uu ka dhaadhiciyo deeq bixiyaasha iyo sidoo kale dalalkii wakiiladooda ay ka soo qayb galeen shirkan sida muhiim ay ugu tahay Soomaaliya in laga cafiyo deymahan ayaan weydiiyay ahmiyadda ay u leedahay Soomaaliya haddii deyntaasi laga dhaafo. marka IMF-ta oo joogtay way ka hadleen African Development Bank waa ka hadlay marka hadda waxaan halkan u joognaaba waxa weeye shirarka halkan uga qayb galaynaaba waa inaan dadweynaha adduunka ka dhaadhicino inay Soomaaliya soo kacday oo soo noqotay oo ay ogtahay waxa ay sameynayso oo ay la falgalayso beesha caalamka inay la falgalayso wixii la nooga baahan yahay inaan sameynayno inaan dhinac ayaga xajinayno in badan baa Soomaalida la hadlay kuma kalsoona in kalsooni mar un la naga arko ayaan iibinaynaa waan iibsanaysaa. mar kale wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle waxa uu yiri laakiin waxaan u baahanahay waxa weeye in la yiraahdo Soomaaliya way gaadhay halkii looga baahnaa dabeetana laynoo furo waxyaalaha adduunyada kala qaadato oo la yiraahdo concessionary resources ila deeq laynoo furo ayaan u baahanahay dabeetana deynta cafideedu waqtigeeda iska qaadanaysa waqtigeeda iska qaadanaysa leena ka deynta ma bixina maarta marka dadku inay soo fahmaan ayaa la qaata fadhiga loo baahan yahay qaraar qaadashada anigu waan u bixiyay waxa weeye fadhi la oranaya Soomaaliya normal bay noqotay hal loo furo daaqadaha waxaan doonaynaa inaan dhisno waxa la yiraahdo credibility ama kalsooni iyaan dhisayna kalsoonidaan dhisayna waxa weeyaan kalsooniya mas'uulnimo ku jirto mas'uulnimo ku qeexan tahay dalkani muddo ayuu dhibaato ku soo jiray dhibaatada inuu ka baxaan rabnaa si wax garad lena inuu uga baxaan rabnaa deyn baad ka bixi haddana deyn kana geli annaga macquulna lama aha hadday dad kale sameeyeen dad kale anagu dadka kale meeyin meelnaba kuma oranayna kumana oranayna madaxayana kuma jirto. dhinacyada ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa waxa ka socday dhowr qof
waxa ayna qudhooda ka hadleen xaaladda dhabta ay ka jirto Soomaaliya. magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xirsi, waxaan u shaqeeyaa hay'adda NABAD ka socda Soomaaliya. firkani wuxuu ku saabsanaa sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta, waxaana isugu yimid dad fiican oo maaragtay meelo kale ka duwan oo ka yimid. waxaan u arkaa inay tahay pressure fiican ama maaragtay culays fiican oo dadka la saaraya hay'adaha caalamiga inay deynta Soomaaliya ka dhaafaan. waxaan rajaynaynaa in maaragtay dawladda Soomaaliya tallaabooyin badan bay qaaday. tallaabooyinka qaadayna waxaa ka mid ah inay maaragtay arrimaha wax ka qabashada xagga maamulka dhaqaalaha ay wax ka qabatay. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waxaa waaye Xaliima Cali Aadan, waxaan u shaqeeyaa ururka la dhahaa Save Somali Women Children oo magac SSWC. halkan shirka waxaan u imaanay waxay ahayd waxaa laga hadlayaa deynta Soomaaliya oo 4.6 billion sida loogu cafin lahay. ummadda ka soo qayb gashana waxay ahaayeen dad oo badan. positive trajectory hadda loo arkaya, so hopefully insha Allah ilaahay intuu noo fududeeyo sida deynta loogu cafin lahay. Khubarada dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegay in caqabad xoogan ay ku tahay lacagtan qaansheegadka ee Soomaaliya lagu leeyahay. haddii la furdaamiyana ay dawladda ku dhiirigelin karto inay hesho deymo horle iyo sidoo kale maalgashi shisheeye. inkastoo isku daygan ay Soomaaliya wado, haddana uma sahlana si fudud in wadamo muddo aad u dheer dhaqaale intaasi ku lahaa Soomaaliya oo waqtiganba weli aan cagaheeda si rasmi ah ugu taagnayn in ay qaantaasi ka dhaafaan. waxaase jiri doona kulamo dambe oo loo madlan yahay oo weli Soomaaliya ay ugu ololeynayso in deymahaasi laga daayo.